Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somalilan Mudane Cabdikariin Saciid Bustaale ayaa maanta si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay Gudoomiyihii hore ee Waxbarashada Gobolka Awdal Mudane Xuseen Sidiin Faarax iyo Gudoomiyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay Mudane Nuuridiin Muuse Ow Cali. Munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday hoolka shirarka Wasaaradda Waxbarashada ayaa waxaa kala soo qayb galay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada, xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiilada, shaqaalweynaha wasaaradda, maamulayaal iyo ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Gudoomiye ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Gobolka Awdal iyo maamulayaal waxayna sii sabootiyeen gudoomiyihii hore waxayna soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub. Halkan waxaynu u fadhinaa inaynu xilka u kala wareejino oo aynu sii sagootino gudoomiyihii hore gudoomiyaha cusubna aynu soo dhaweyno. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ninkaas sitiin maasha oo maanta jooga meel ka fiican inuu Ilaahay geeyo. Run ahaantii waqti yar oo kooban ayaan soo wada shaqaynay. Waqtiga kooban waxana way qabsoomeen. Gudoomiyaha cusub markaa Nuuridiin waxaan rajaynaynaa waan ku soo dhaweynaynaa horta gobolka waan ku soo dhaweynaynaa bahda waxbarashada anoo inta ka wakiila waxaan ku leenahay gudoomiye soo dhawow. Gudoomiyaha cusub waan soo dhaweynayaa waana la shaqayn doonaa. Gudoomiyihii hore ee Xuseen Faarax Sitiinna waan sii sabooteynaa. Xuseen horta waa halka loo duceeyay. Xuseen waxaan Ilaahay uga weydiinaynaa oo u baryaynaa isaga qafuur raxiin meel khayr qabta oo fiican in Ilaahay geeyo. Xuseen wuxuu ahaa nin dumarka dhageysta, nin dadka u dhibriyo ahaa. Nuuridiinna waxaan leenahay wax badan baad la shaqaysay wasaaradda waxba kuguma seegana. Waxaan ku leeyahay insha Allah bidmillaahi kariim kii lagu reeyay lagu yaaqo dumarkana u roonow noqo insha Allah. Ku hadlaya afkii maamulayaasha dugsiyada gobolka inaan la shaqeyno oo si fiican sidii aan Xuseen ula shaqeynaynay iyo si ka wanaagsan baan ula shaqeyno. Waxa weeyaan gudoomiyayaasha labada gudoomiye hore waxbarashada Xuseen Sitiin iyo gudoomiyaha cusub Nuuridiin labadoodaba waxa weeyaan barakallah Ilaahay idin barakeeyaan leenahay shaqooyinka aad haysaan hawshana Allah idin fududeeyo. Gudoomiyihii hore Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Gobolka Awdal Mudane Xuseen Sidiin Faarax oo halkaasi ka hadlay waxa uu ka waramay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii uu xilkaasi u hayay waxaana hadalka uga dambeeyay gudoomiyaha cusub ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Gobolka Awdal Mudane Nuuridiin Muuse Cali waxaana uu ka dareen celiyay xilka markaan mid waxyaabahan ka shaqeeyay ee aan intii aan joogay ku mashquulay waxa kamid ahayd sidii ay dugsi farsamo gacmeed u heli lahaayeen allama hadii imika miisaaniyadu weyn ugu jirtaa dhulkiina waanu haysanaa waxa kale oo jira library iyaduna ma laha magaaladu waxyaabaha intabay bay kamid ahayd library-gina miisaaniyadu way ku jirtaa dhulkiina barasaabka iyo wasiirku way ballan qaadeen hore shaqadu way u socotay hase ahaatee intaan joogay waxyaabahan ku dadaalay waxa kamid ahayd in la adkeeyo bedelkii in la sii adkeeyo ardaydii taxanaha waxbarasho aan inay boodaan aanu adkeynay. Boorama arday baan ka noqday macallin baan ka noqday waxbayaan la yidhi hay'ad buu soo shaqeeyay kormeeraan ka ahaa xafiiska wuxuu u shaqeynayaa ummadda si ummadda uu ugu shaqeeyo ummaddu waa inay ku soo dhiirato in iyaga laftooda contribution-koogii ama ku darsigoogii ama qaybtoodii la helo. waxaan rajaynayaa xildhibaan Maxamed Xuseen Meedhan oo ka socday aqalka Golaha Wakiilada Somaliland oo goobta ka waxa layniga baahan yahay marka barbaarinta inaad xoog saartaan waayo waxbarashada barbaarinta ubadku oo si wanaagsan loo barbaariyay waxay badbaadinaysaa wadanka cidda laf dhabarta u yihiin oo baxda waxbarashada inuu hawl badan haya run ahaantiina nimahad celinayno inaad hawsha. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Somaliland Mudane Cabdikariin Saciid Bustaale ayaa si rasmi ah xilka ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub. Runtii sharaf weyn bay tahay inaan goobjoogidii ka ahaado munaasabaddan aynu u kala wareejino labadeena gudoomiye Sitiin iyo gudoomiye Nuuridiin xilka iyo mas'uuliyadda ummadda loo hayo maalinba inuu qof hayo oo mas'uuliyadda qor isku dhiib qof waliba inta uu joogo wixii uu qabtay ee dalka inuu tabarucaadka ku soo dhisnay oo ku darsaday inuu ku leeyahay taariikh gobolkuna waa gobol aad u ballaaran baahi walbana way jirtaa maanta horumar weyn baa socda wasaaradda waxbarashada waxay dhisaysaa weegan hadduu Ilaahay yiraahdo ama toddobaadkan aanu baahin doonaa qandaraaskii library-gii weynaa in magaalada ugu tala galay. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo telefishinka CBA Boora.